Sideed ku hirgelin kartaa ganacsi guulaysta 10 caqabadood oo ay tahay inaad ka gudubto si aad u howlgeliso kartidaada ganacsiga bilowga ah. Assalaamu calaykum, soo dhawaada saaxiibayaal. Magacaygu waa Xasan Nuur. Maanta waxaan ka hadli doonaa qayb kale oo ka mid ah buugga Entrepreneur Revolution ama kacdoonka ganacsiyada abuurka ah. Hore waxaan uga soo hadalnay qayb kale oo ku saabsan isla buugga. Haddii aadan hore u daawan, waxaad ka daawan kartaa linkiga qaybta hoose. Dunidan sida xawliga ah maalinba maalinta ka dambaysa isu sii beddelaysa. Inaad hal abuur ganacsi la timaado keliya ma ahan mid ku farxad gelin doonta, ee xitaa waa mid laga maarmaan u ah horumarkaaga. Cutubka shanaad ee buugga kacdoonka ganacsiyada abuurka ayuu qoraaga Daniel Priestley wuxuu uga hadlayaa 10 caqabadood oo waaweyn oo ay lagama maarmaan tahay inaad si geesinimo leh u wajahdo, kuwa oo beddeli doona habfakarkaaga, kicinna doona hal abuurkaaga iyo awoodahaaga qarsoon. Tallaabooyinka ay tahay inaad qaaddo ma ahan keliya kuwo kugu caawinaya inaad ganacsi bilowdo, ee waxa ay sidoo kale kugu abuurayaan inaad dib uga fikirto habka aad nolosha u wajahayso fursadaha iyo caqabadaha. Haddii aan gudaha u galno qodobadaasi, qodobka koowaad, samee 3 wicitaan. Dadka ganacsiyada hindisa waa kuwa tallaabooyin qaada. Priestley wuxuu kugu adkeynayaa inaad isla maanta samayso 3 wicitaan si aad u horumariso mashruuca ama fikradaha ganacsi. Ha sugin waqti ku habboon iyo warbixin dhammaystiran. Inaad bilowdo wada sheekaysiga, waxaad ka gudbaysaa hubanti la'aanta, waxaadna qaadaysaa tallaabada koowaad ee ku aadan inaad samayso aragti ku salaysan xaqiiqada. Waxaan arrintan ka fahmaynaa in sugitaanka fadhiid ka dhigayo qorshahaaga, halka ficilku dardar gelinayo dadaalkaaga. Qodobka labaad, u samee akoon gaara dhaqaalaha aad ugu talagashay qorshahaaga ganacsi. Qoraagu wuxuu kugu dhiirigelinayaa inaad samayso akoon qaas u ah hirgelinta hadafkaaga ganacsi. Arrintan ayuu sheegay inay abuurayso xuduud maskaxeed oo u dhaxaysa dhaqaalahaaga shakhsiyadeed iyo midkaaga ganacsi. Arrintan ayaa loola jeedaa in riyadaada ganacsiga abuurka aad siiso xushmad iyo habdhismeedka ay u qalanto. Qodobka labaad, jooji inaad waqti la qaadato dadka dhinacyada xun wax ka eega ama dadka loo yaqaano negative people. Sida caadiga waan fududaysanaa saameynta ay dadka nagu hareeraysan ku leeyihiin fakarkeenna iyo weliba kartideenna. Haddii aad ku dhex jirto dad cabasho badan, dhinac xun ka fiiriya xaajo kasta, dhiirigelin aan aqoon, hoos kuu dhiga, waa waqtigii aad ka guuri lahayd goolna lahayd xiriiradaasi. Naftaada ku hareeree shakhsiyaad ku dhiirigeliya, kula tartama oo taageera koritaankaaga iyo horumarkaaga. Waxaan halkan ka fahmaynaa in dadka aad ku dhex jirto ay saameynayaan qiimahaaga shakhsi ahaan iyo weliba xirfad ahaanba. Qodobka afaraad, adeegso lacagaha kaashka ah. In aad lacag kaasha qaadato duni ay hareeyaan lacagaha online-ka ee kaararka ama taleefanada lagu sito, waxay dib kugu xiraysaa qiimaha la taaban karo ee lacagtu leedahay, waxayna ka beddelaysaa maskaxdaada lambarrada aan la taaban karin, ayadoo u beddelaysa xiriir miyir qab ah oo aad waxna ku qarash garaynayso, waxna ku keedsanayso. Qaybtan ayuu qoraagu uga hadlayaa in marka ay timaado isticmaalka lacagaha ay ku fududahay in lacagaha kaararka ama taleefanada lagu wato aad si fudud u isticmaasho, halka marka aad adeegsanayso kaashka ay kugu muuqanayso habka aad lacagta ku bixinayso, taasoo kuu badbaadin doonta lacago ay suuragal ahayd inaad ku qarash garayso waxyaalo aan muhiim ku ahayn. Qodobka shanaad, ugu yaraan 2 qof casuun oo baro toddobaad kasta. Isku xirka wuxuu lagama maarmaan u yahay xirfadda ganacsiga bilowga ah. Priestley wuxuu soo jeedinayaa in 2 qof oo aadan aqoon u lahayn aad qada ka bixiso isbuuc kasta. Arrintan ayuu sheegay inay sababayso saaxiibtinimo cusub iyo fursado mustaqbalka ah, isagoo sheegay inay tahay maalgashiga xiriirada ka hor inta aadan u baahan. Arrintan ayaa ka dhigan inaad goosanayso miraha aad beerato, dadkuna ay ka mid yihiin ilaha ugu muhiimsan ee la maalgashto. Qodobka lixaad, la soco wararka cusub ee ganacsiyada la xiriira. Qoraagu wuxuu soo jeedinayaa inaad ku xirnaato akhbaaraadka, taasoo uu xusay inay kaa caawin doonto inay xoojiso hal abuurkaaga, ogaana doonto waxyaalihii u dambeeyay ee soo kordhay, sidoo kale aad ka baran karto tallaabooyin cusub oo aad qaadi karto. Qodobka toddobaad, noqo qof wax diiwaangeliya. In aad diiwaangeliso afkaartaada, dib u milicsigaaga, waxyaalihii hore kugu hergelay iyo weliba qorshayaashaada waxay door muhiima ka ciyaari kartaa dadaalka aad doonaysa inaad ka guulgaarto. Diiwaangelintu waxay maalgelisaa hufnaanta, isla xisaabtanka iyo koriimahaaga shakhsiyadeed. Waa goobta riyada, istiraatiijiyadda iyo halbeegga horumarkaaga. Nuxurku waa in diiwaangelintu ay tahay hagaaga guusha. Qodobka 8aad, qorshee qarashka fasaxyadaada isticmaalkaaga shakhsiyadeed. Ganacsi abuurayaashu caadiyanba fashil ayay kala kulmaan marka ay qorshe ka yeelan waayaan waxa ku baxaya xilliyadooda nasashada iyo madadaalada. In sanadka bilowgiisa aad qorsheyso qarashaadka ku bixi kara fasaxyadaada iyo madadaalooyinkaada waxay xaqiijinaysaa
inaad haraa ku filan u hesho danahaaga iyo damaashaadkaaga. Noqo qof diyaarsan. Ganacsi abuurayaashu keliya ganacsigooda kuma guulaystaan hal abuurka, laakiin waxay sidoo kale u baahan yihiin dhismo. Qoraagu wuxuu carrabka ku adkeeyey muhiimadda ay leedahay la tashiga dadka xirfadlayaasha ah sida xisaabiyaasha iyo sharciyaqaanada si aad dhidibada ugu adkayso hal abuurkaaga. Qodobka 10aad, waxaad dhistaa koox ganacsato yaryar. Guushu waa safar. Naftaada ku hareeree dadka kula wadaaga aragtida. Isku keen xirfado dhammaystiran oo kugu riixaya inaad korto. Haddii ay ahaan lahaayeen la taliyaal, xulufo ganacsi ama shaqaale, kooxda saxda ah waxay xoojin doontaa saamaynta ganacsigaaga. Ha ismoodsiin caqabadaha adag. Qoraagu wuxuu kaaga digayaa inaad iska ilaaliso aad wajihi weyso caqabadaha aan ku farxad gelinayn ahna kuwa kugu cusub. Koritaanku kuma yimaado inaad ku nagaato halkii aad farxadda ku haysatay. Isbeddelka dhabta ah wuxuu yaallaa inaad wajahdo howlaha ku hor yaalla ee kugu riixaya meel ka baxsan halkii aad joogtay. Gabagabada, dhammaan 10kan qodob ee aan soo koobnay ee uu ka kooban yahay cutubka 5aad ee buugga kacdoonka ganacsiyada bilowga ah ma ahan howlo aad qabanayso, ee waa habdhismeed ku saabsan inaad si ka duwan sidii hore u fakarto, kadibna aad hagto mustaqbalkaaga. Inaad dhaqan geliso tallaabooyinkan keliya kuma suuragelinayso inaad ganacsi abuurto, waxaad sidoo kale dhisaysaa naftaada. Bal hadda ka fakar, maxay yihiin caqabadaha ugu adag ee kaa hortaagan inaad hore u socoto? Haddii aad ogaatay caqabadaha, halkaa ka bilow. Tallaabo qaad. Safarkan ha kuu bilowdo ilaa aad ka guulgaarayso. Inta ayaan kusoo gabagabaynayaa qaybtan. Intaan qayb kale ku kulmi doono, nabadgelyo.